السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو سلامتين كربعنا ونكسن ما شاء الله. سبب وكسون تهيب مانتا صاك وحنا صباحنا سفر على عينا ولي أنكو دكو جد شنا واحد رفع يسوع كان ليدر سعدو قارية ليدر أحمد داود دكتور أحمد محمد علي سيدو كان وراكي عبد السلام محمد ويسوقنا قريب خميد أنا قبلنا سفر كواحد بدنا نوفد دي ما شاء الله. محمد ليدر أحمد داود وحلي هاي نصحابتي نقالقة ما أنت واحد نشوفني العين مقال هذا كم إمارات كعربتها ومقالات قروح بدن قديمية دتكيد وناكسينيين ما شاء الله ويسسكي بنسوسي يارني مقالاتنا وسوكر برني وحلي مركها نقول ده ما شاء الله العين إن شاء الله مقالوين كلوات كده بجينا بإذن الله ونتسودين ما شاء الله سوى وكسونين كل ساعة كسفر ده بنقصان كلاي مقالة دبي أنا وقوات هنا مقالة أبو دبي مقالة العين ولو حنقولنا سلامه فاميلي ذا كده دوان يعني ولو كنا ما شاء الله هذا حنقول سودنا نقولي قرار سهور ونقص مرتق عادي ما شاء الله كل يوم كده وحنوسي عم بيحضرنا أجي مقالة دبي ما أنتي ما محل السعودية ونكسن إن شاء الله السفر قروح بدن الجواب قروح بدن حياة أثار قديمة يعني سوق بدنا إن شاء الله كمان كأحمد لأنه خلينا مرة بعدي بس تعبى سبسكرايب تيجي شير تحت الله إن شاء الله.
Al-Ain waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan 6 magaalo ama 6 boqortooyo 6 boqor ay kala maamulaan. Al-Ain waxay ka mid tahay meelaha ugu qadiimisan ee Soomaalidu ay aadka u degto, aadka ay u degaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la ii sheegay qiyaas ahaan xilligii uu aasaasayay boqorkii hore ee dhalay boqoradan iminka joogay taliya, xilligii uu aasaasay Imaaraadka Carabta, in xilliyada qaar Soomaalida lala baryi jiray inay qaataan baasaboorka Imaaraatiga, isla markaana Soomaalidu iyagoo sanka taagayo iska weynaysiinaya maadaama markaa ay dowladdii Soomaaliyeed ay jirtay, isla markaana Soomaalidu ay runtii Geeska Afrika ba iyagu ugu sarreeyeen, ama indhaha Afrika oo dhan ba ay ugu maamuus fiicnaayeen inay ummadda Soomaaliyeed marka xilligaas ay diidi jireen ama ay iska diidi jireen baasaboorada. Laakiin odaygii xilligaa maamuli jiray ee waddankan ka talin jiray uu in badan jeclaa inay ummadda Soomaaliyeed markaa ay qaataan baasaboorka Imaaraatiga, balse laakiin dadyow ka faa'iidaystay oo xilligaa ku baraarugsanaa muhiimadda uu leeyahay baasaboorka ayaa jira. Dadyowgaas inta ugu badan waxay ku noolaayeen markaa Al-Ain bay ku noolaayeen, ilaa haddana way ku nool yihiin qaryada Al-Ain, oo waxaa laga soo helayaa qoysas Soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa Al-Ain baa la soo helayaa. Sidoo kale maadaama Al-Ain ay ka tirsan tahay Imaaraadka Carabta, wax badan ma laha, waa magaalada keliya aan markaa badda lahayn. Sidoo kale maadaama ay meeshu tahay meel runtii aad u kulul oo saxaro ah, waxaad ku arkaysaa haddana inay ka dhir badan tahay magaalooyin badan oo Soomaaliyeed, inay ka dhir badan tahay. Markii dib loogu noqday taariikhda aan waraystayna waxaa la ii sheegay xilliyada ka mid ah inuu amray boqorka ka talin jiray markaa Al-Ain ama boqorkii hore ee Imaaraadku inuu amray in dhir badan laga keeno Soomaaliya oo la tijaabiyo, kadibna dhirtii in lagu guuleystay oo la arkay inay si fiican uga soo baxayso, si fiican u bixi karayso, kadibna uu amray in kumanaan geed la beero. Geedkii ilaa hadda wuu beeran yahay, tafiir badan buu yeeshay, waa geed runtii aad u qadiimi ah, aadna u qurux badan, wadooyinkii oo dhanna u qurxiyey magaalada Al-Ain. sidaa darteed magaaladan waa magaalo hadda jawigeedu aad u degan yahay, aanad moodaynba inay ku taalo dhul saxaro ah, kayn fara badan leh, qurux badan, deegaankii aad u habaysan yahay, wadooyinku aad u qurux badan yihiin. Waa deegaan aad u degan cimilo ahaan iyo weliba ku noolaanshiyahan. Ma laha gaadiid aad u fara badan, sidoo kale ma laha saxmad badan ma laha. Al-Ain waxyaabaha kale cajiibka ku leedahay waxaa ka mid ah, waxay leedahay sidii buurihii Sheekh oo kale, buurteenii Sheekh oo kale ayay leedahay, buur aad u dheer, aad u dheer, isla markaana joog sare ah, isla markaana aad loo qurxiyey, oo laga sameeyeyba goobo dalxiis oo dadku ay ku nastaan, sidoo kale ay cuntooyin ku samaysan karaan, waqti ay ku wada qaadan karaan, dushana ay ka sawiri karaan, ay ka daawan karaan magaalada Al-Ain. Al-Ain waxyaabaha kale aan ku saaxiibayaal waxaan ugu talagalay inaan idin kala baro inta aan joogo Imaaraadka Carabta, kolba halkii aynu ka gaadhno inaan idiin soo tabiyo, idiin soo gudbiyo. Hadda Jamaal Xafiid baan weli ku dhex jirnaa, buur la yidhaahdo. waa buur runtii aad u dheer oo cabir ahaan ku qiyaasan buurtii Sheekh haddaanay kaba dheeraynba, oo aad kor usoo fuulayso in fara badan. Marka halka ugu sarreysa markaad soo gaadho, halkan markaan taaganahay ee aan joogo, waa meel loogu talagalay markaa in dadku baabuurta dhigtaan, iyagoo ay ku nastaan, waqti ay ku wada qaataan, sawirra ay ku wada galaan. Sidoo kale hadday habeennimo ku gaadhaan cashooyinkooda iyo waxoodoo kalena ay ku samaysan karaan. Maqaaxiya sidoo kale ku yaalla. Waa goob markaa aynu uga baahannahay inaynu ka samaysanno buuraheenna sida Sheekh oo kale, Daal oo kale, Gacan Libaax oo kale. Macnaha waa meelo ku habboon inaynu sidaa u fikirno, kadibna aynu deegaanadeeni iyo dhulkeennii ayaynu sidaa ka dhigi karnaa inaguna. Qof kastoo dalxiisa ah oo Al-Ain ama Dubai ama Abu Dhabi soo gaadha, buurtan inuu soo gaadho waa meelaha lagu xisaabtamay markaa dalxiiska ku habboon weeye. Marka inaguna waan awoodnaa inaynu sidaa u fikirno iyo si ka sii fiican. Waxaynu leenahay bal buurta iga dambaysa iminka dhererkeeda eega aad bay u dheertahay, fiidiyowga inoo soo koobaya, laakiin aad bay u dheertay. Marka fikradaha wanaagsan waa inaynu soo minguurinaa oo dadkeennii iyo dalkeennii aynu dee u keennaa, oo si ay iyaguna uga faa'iidaystaan muuqaal ahaan markay daawadaan, sida loo naqshadeeyey, sida loo design gareeyey, sida loo diyaariyey. Chinese baa jooga, Hindi baa joogta, waxaa jooga Russian baa jooga, Carabtii baa ka buuxda, Soomaaliya annagaa joogna. Saas laajligeed aad baynu markaa ugu dhiirigelinaynaa inaynu saa u fikirno oo dhulkeenni saa u qurxisano, oo deegaan aan sidaas garanaysaa buuraheennii
ilaahay inagu manaystay ee nagu abuuray inaynu saas oo kale ka dhigno. marka waxaan idleeyahay ballanteenu daawasho wanaagsan, muuqaalka quruxda badan leh, goobta lagu nasanayo, goobta sawirada la iskaga qaadayo, goobta maxaan ku dhahdaa qofku ku nafisayo isagoo track soo galay ama gaari ka xumaaday uu dhigan karayo. marka waxaynu u baahanay inaan goobo noocaas oo kale u fikirno mustaqbalka dhow iyo ka dheerba si aynu dadkeena wanaagsano. aad Al-Cayn waxaa runtii nagu casuumay qoys Soomaaliyeed maasha Allah waa aad u qurux badan si aad u heer sareeyana noogu soo dhaweeyay magaalada. waanu mahad celinaynaa mar kasta, waxaynu leenahay thank you very much, aad baad mahadsantihiin. waa qoys ka mid ah qoysaskeenii. sidoo kale magaalada Al-Cayn waxyaabahan ku xasuusana waxaa ka mid ah martisoorka. waa dad aad ugu fiican martisoorka iyo soo dhaweynta qaraabada iyo weliba martida. runtii intaan Imaaraadka Carabta joognay waxyaabaha la yaab kale ee aanu kala kulannay waxaa ka mid ah soo dhaweynta diiran ee heerka sare ah ee qof walba Soomaali uu ku samaynayo markastoo aad aragtaan. intaasoo safar aanu galaynay aad aragtaan wax yar mooyaane inta badan waxaana soo dhaweynayay oo nagu soo wareejinayay oo meel kasta na soo tusayay waa dadkeenii Soomaaliyeed ee aan ugu tagnay halka, gaar ahaan qaraabada iyo weliba asxaabta. waxaynu leenahay mar kasta waad mahadsantihiin, qayb weyn baad ku leedihiin channelkan iyo dadyowga daawanaya Soomaaliyeed oo dhammaystiran oo idin leh aad baad mahadsantihiin. jasaakumullahu khayran. haddaba magaaladan Al-Cayn ama gobolkan Al-Cayn runtii waa gobol aad u qurux badan. waxaa ku yaala garoon aad weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro. waxaa kaloo runtii uu leeyahay iskuulo waaweyn oo international ah. waxaa kaloo ku yaala runtii oo sidoo kale in xusna ay tahay masaajid aad u weyn aadna u qurux badan oo intii aan joognay maadaama Imaaraadka Carabta ay geeri weyn ka dhacday oo sheekhul baladkii ama sheekh weynaaya Imaaraadka Carabta uu geeriyooday, ilaahay ha u naxariisto, jannatul firdawsna ha ka waraabiye. janaasadiisii la dhigayba Al-Cayn, gaar ahaan masjid uu hore u lahaa oo ku dhex yaala magaalada gudaheega oo halkan aan idinku tusi doono insha Allah. halkaas oo runtii ay ku aasan tahay maamadiina ay ku aasan tahay. sidoo kale isagana janaasadiisii la dhigay halkaana lagu soo booqanayay oo runtii lagu tacsiyadeynayay qoyska uu ka baxay reer boqor. runtii magaalada Al-Cayn waa magaalo jawgeeda aad u degan yahay, quruxdana laga daawan karo dusha. gudaheeda markaad ku jirtana aad u degan, sabxad badan aan lahayn, gawaari badan aan lahayn. maasha Allah in ubad lagu korsado oo waxbarasho laga dhigan karo oo maasha Allah ay tahay in laga soo shaqo tago magaalada Abu Dhabi ama Dubai ama magaalooyin kale loo shaqo tago, laakiin goob ku habboon in qoysasku ay ku noolaadaan ama caa'iladu ay ku noolaato weeyaan magaalada Al-Cayn. haddaba aan idiin kala baxo daawasho wanaagsan magaalada Al-Cayn iyo gudaheeda iyo masaajidka quruxda badan leh, garoonada iyo guud ahaan wixii kale aan ka tegay cod ahaan. daawasho wanaagsan.
Thank you.